dhageystayaal ku soo dhawaada radio Shinile oo aad ka dhageystaan barta internetka shinilenews.com. haddaba barnaamijkeenan maanta oo ah noqon doona barnaamij dood wadaaga wuxuuna oo ku saabsan arrimaha siyaasadeed ee ka taagan wadanka Jamhuuriyadda Djibouti. barnaamijkeenan haddaba maanta waxaa noogu marti Maxamed Maxamuud oo ah afayeenka arrimaha dibadda ee ururweynaha USN iyo aqoonyahan ka soo jeeda gobolka Salal Xasan Amara oo ah aqoonyahan u dhoon daloola arrimaha siyaasadeed ee wadanka Jamhuuriyadda Djibouti. haddaba barnaamijkeenan oo aan ku sii socon doono su'aalihi maanta aan ugu talagalnay bal marka hore aan ku soo dhaweeyno mikrofoonka labada mudanayaal ee barnaamijka nagala soo qayb galay. ku soo dhawaada Xasan iyo Maxamuud radio Shinile. waan ku dhownahay walaal aad iyo aad baan ugu dhownahay. su'aasha hore oo rabo inaan idin weydiiyo bal anigoo ku hormaraya Maxamed Maxamuud waxay tahay doorashaad gasheen oo aad kula loolamayseen idinkii xisbiyaal kale doorashooyinkii golaha baarlamaanka ee ka dhacay wadanka Djibouti 22 bishii February ama Febraayo ee dhaahdo ee ka dhacay wadanka Djibouti. doorashooyinkii natiijadii kama dambeyntii lagu dhawaaqay waxa ku soo baxay in ururka EMB uu halkaasi ku guuleystay awna qaatay kuraasta intii ugu badnayd. idinka laftarkiigu hadda tiin ururweynaha USN ku midoobay xaaladda wad ka biyadiideen bal ilaa imika arintii aad ka biyadiidaneedeen waxa tanaasulaada idinka ilaa hadda ma ka yeelateen si aad dawladda iskula meel dhigtaan xal kama dambeeyna oo idinku aad ku horumarinaysaan danaha wadanka. wallahi bismillaahir rahmaanir rahiim horta waa su'aal aad iyo aad u fiican walaal. sida runtii dalada USN ururka badbaadada qaranka 22 bishii labaad doorashaan galnay waxaan la galnay dalada EMP. doorashadii sida u dhacday hab fiican buu ahaa laakiin run ahaantii natiijadii sidii lagu garanayay taliska meesha jooga markii yareedba walaal uu rogay. markii natiijadii runtii uu rogay uu iska diidan yahay inuu aqbalo. marka sida run ahaantiina dabcan 200 ilaa 210 beero weeyaan waxa Djibouti laga footeeyo. beero kastaba natiijadii ka soo baxday intii la kala helay waa la hayaa xaqiiqdii warqadii RCBC-ga ayaa la kala hayaa taliska un baa diidan inuu aqbalo natiijadii oo nadda waxaan jirin oo meel aqli galhayn waxaan lagu dhawaaqi karinayn inuu iskaga dhawaaqday oo iskaga marorsaday wixii. taasina dadweynaha reer Djibouti yaa ka horba dalada USN iyo ka biyadiiday maalin kasta jimca kastana banaan baxyo wada kaga soo horjeeda natiijooyinka taliskana naga kale oo ka qancay walaal. waa garta Xasan Amara adiga maxay kula tahay bal dacwada ay ka qabaan ururweynaha USN maadaama ay siyaasi u dhoon daloola arrimaha wadanka Djibouti bal maxaad u malaynaysaa arinta ururweynaha USN sidee baa lagu qancin karaa maadaama ayagu ay ka biyadiideen natiijadii kama dambeyntii ka soo baxday go'aanka doorashooyinkaas. horta assalaamu calaykum wa salaam. Alaykum salaam. marka labaad marka aad doorashada galayso wax badan baa ka horeeya intaana doorashada galin waxa ka horeeya inaad ixtiraamayso sharciga iyo qawaaniinta doorashada waxa ka horeeya inaad ogolaanayso wixii ka soo baxa doorashada. waxyaalo badan baa ka horeeya doorashada oo sharci ah kuwa haddaanad ogoleen marka hore inaad doorashada gasho maaha. ta kale shicibka ayaa go'aanka iska leh male qorada mucaaradkii go'aanka iyagu male waxaad oo la sheegi karo oo muuqdo oo meel aan ku arkanay ilaa imka dacwada muuqa mooyaane waxaan aragnay ma jirto. ta kale qolooyin goob joogayaal oo dunida oo dhan ka socda ayaa joogay doorashada. doorasho ma ahayn labada xisbi oo ka dhaxayso markhaatiyaal cad oo dunida ka socda baa joogay shir jaraa'id bayna qabteen waxayna cadeeyeen doorashadaasi xaq iyo xalaal inay u dhacday. marka doorashadaasi markhaati bay leedahay way sharciyeysan tahay wixii ka soo baxay inay aqbalaan bay ahayd. ta kale go'aanka haddii marka aad adigu hadlayso ay dad badan soo buuxiyaan ha u qaadan dadkii oo dhan in adiga foodka ku siiyeen ka kale ka soo horjeeda markuu hadlayana saasoo kale loo soo buuxinaya. go'aankana adigu ma lihid shicibka ayaa iska leh. had iyo jeerna wadaniya amba siyaasi hadda tahay waa inaad ogolaataa go'aanka natiijada shicibka ayaa leh doorashada iyaga dadka doorta wixii iyagu ay go'aansadaan waa inaad adiguna ku qanacsanaataa. saasay la tahay waa hagaag bal haddii aan isla hadalka ku sii socono
sida aad adigu hadalka u dhigtay Xasan Amare waxa weeyaan go'aanka waxa iskala shacab laakiin shacabka waxay inta badan u kala safnaayeen axsaabta ku loolamaysay ee doorashooyinkaas maadaama ururka weynaha USN isaga shacbigii uu matalayay isaga mas'uul ka yahay ma aragtaan doorashadana uu qayb galay iyagu miyaanay marka xaq u lahayn in ay natiijada ka hadli karaan oo ay oran karaan waxaan waan diidanahay waxaan waan ogol way ka hadli karaan natiijada waa laga hadli karaa oo meelo sharciya jiro oo loo maray jira laakiin si silmiya baa looga hadli karaa laakiin si propaganda dacaayad aad fidiso oo si nidaamka waafaqsan uga hadasho waa qalad wadanka doorasho ka dhacday hadii aad diido wadanku system iyo sharci iyo nidaam buu leeyahay constitution buu leeyahay waa inaad martaa meelihii la maray laakiin inaad buuq kiciso oo maalin kasta dadka soo saarto oo tira hal dagaalamo oo aad tira waxa la burburiyo oo hal la sameeyo waxa la yiraahdo in sharciga laga hor yimaado taasi ma aha mucaaradnimada systemkeeda mucaaradku waa inuu hadiye jeer silmi ahaada waa inuu naahan mucaarad wax burburinayo waa inuu noqdo taas loo baahan yahay waa hagaag maxamed haddii aan dhinac kale u dhigno doorashooyinka idinka laftarkiina idin goobjoog idinka ahaa meelihii codbixinta laga dhiibanayay waxay idin joogay dad wakiila oo idinka idin matalayay markii doorashooyinka gabagabadii la tirinayna kullay goobjoogayaal caalami ah sida la sheegayo iyo idinkaba goobjoogayaal baa idinka joogay sababta maxay tahay ilaa hadda aad biyo diidantiin natiijadii labada dhinac baa idinku goobjoog ilaa inta soo ahaydeen walaal way su'aal fiican dabcan maxaan ku raadaa horta biro kastaba marka la yiraaho ninka walaalkeen uu saani constitution-ga wadanka iyo golaha siniga la yiraaho soo abaabula doorashooyinka iyo waxa ku shaqale inuu saan u yarfahansaneen baan humadeeyay dabcan markasta goobjoogayaashu waxay ka hadleen natiijada meel kasta shanta gobol lixda gobol iyo shanta gobol iyo magaalo madaxda ka dhacday kamee hadal guud ahaan si nabadgelyo ayaa u dhacday oo qofba ma diidano laakiin isla markii yareedba afartii xamaanimo Djibouti si waxaan weligeed lagu arag iyo wasiirka arrimaha guduhu sagoo daalan oo waxaan maskaxda galeyn oo qof yarna aqbalin iyo ku hadlay walaal inkastoo loo yahay biro kastaba saan hore kugu sheegay biro kastaba waxa jira inta ka codeysay inta maqnaatay qolo kastaba inta ka heleen warqadiyo cad baa lahayaa ma wax la iska alufanay ma walaal waa wax xisaab ku socda waa wax maxaa prevision iska cad ku socda oo la iska wala arkayo walaal marka dadku haday biyo diideen reer Djibouti waxay yeesan kaleeray soo baxa ma jirto dadku iyaga iska nacay taliskan oo 35 sanadood in ka badan iyo ku haysta qori afki walaal taabay diideen dadkuna taabay diidan yihiin waxay iska arkeen dadka reer Djibouti waqtigii dictatoriyadu way dhamaatay way dadku la socdaan wadanka jeerkeena yaban way arkayaan wadamada agteena Masar way arkayaan mandaqada ku taala Tunisia way arkayaan dadku nolosha siyaasadeed galeen iyo horumarka galeen way arkayaan corruption-ka wadanka ka jira hadiya jeer iyo tiifta ka muuqata dadka wada reer Djibouti waa la arkaya iyo lacagta Djibouti waa wadan walaal infrastructure le marsooyin le poorar le walaal waa wadan dikada le waa wadan wadamada jaarka la waxay maxaan ku raadaa relation baa misreed ama wax service la wadaaga Djibouti waa meel inta badan lacag aad ugu soo shubanto laakiin corruption baa Djibouti boqonaha gooye walaal dadku ka gaajoonayaan Djibouti dadku waxay diidan yihiin wax kaste oo systemka ka uu wato walaal waa sida weeyaan waa gartay bal aan ku horta ay noo dambayso qaybaha horumarinta iyo barnaamijyada mashaariicda ee wadanka ka jira aan ku sii socona bal xagga doorashada laftarkeeda maadaama dawladii maanta ay ku dhawaaqday in doorashadii iyo codbixintii halka lagu loolamayay ururka EMB aqlabiyada ku guuleystay kuraastii baarlamaanka idinka ka macaarad ahaan maxaad hal door bidaysiin wadankii si amnigiisa iyo xasiloonidiisa loo adkeeyo maadaama maanta xaaladda aad ogtahay wadanku ku jiro ay xaalad lagu faani karo xagga nabadgelyada ay tahay waxaad idinku door bidaysiin in wadanka nabadgelyada wax walba laga raaco wada shaqeyn lala sameeyo ilaa inta xal kale oo maad aragtaan looga gudbi karo khilaafkaas la helayo mise waxay idinka taagan tahay wax allaala wixii macquul ah idinku in aad doorashadiini aad ku xaqiiqsan kartaan inaad sameysaan may walaal horta nabadgelyada iga sheegaysa hadaan kaaga jawaabo Djibouti 100% iyo nabadgelyadu ka jirtaa walaal
sida soo saartay Conseil de Sécurité golaha ammaanka ee adduunyada talabaad xagga doorashada hadday noqoto annagu kun goor baan wala hadal u fidinay dalada yeesan oo madaxweynaha ku saxiixan yahay Axmed Yuusuf madaxweynaha wadanka waxa uu dirtay 24 bishii Abriil ama bishii afraad ee Abriil waxa uu dirtay warqad furan oo ku weydiis dialoog inay wala hadal siyaasadeed ay la gasho madaxweynuhu markii aadba uu soo laagay jawaab adag ayuu ka soo baxshay isagoo Maxamed Daahir Television ku hadlay oo afka wasiirka arrimaha dibadda ee afayeenka xukuumadda afkiisa ku aflagaaday ku hadleen markaste dalada USN wixii xal lagu helayo ama soo fariisi mis loo fariisto oo si nabadgeliya oo walaalnimo laga hadlo way doonaysaa Djibouti inay dalada USN saxar ku dhaama doonayso ee waa ninka madaxweynaha wax marna constitutionkii laaba iska bedelinaya doorashooyinka laaqlaaqaya wax kasta nidaamka guursiinay walaal ee dalada USN wax dhibaato iyo wax xumaan Djibouti lama doonayso hore mar bay la doonaysaa ee talabaadna doorashooyinkana hadii la eego walaal doorashooyinka sida ku dhawaaqeen si maskax gal ma tiradii runa maaha waxa laga doonayaa inuu madaxweynuhu ceeb maaha inuu iska qirto in laga bediyay si fiican boqolkiiba 10 maxaan ku raada EMBdu iska qaataan maxaan ku raada inta boqolkiiba 20 ka heleen boqolkiiba 80 dibiteeda mucaaradka wala la siiyo nabaduna waa xageega dadku gamca furan dimuqraasiga oo gamca furan qalbi furan wala shaqeyn fiican walaal xaga xasan amare hadii aan iyada su'aashan aan iyada laftarkeyga ku siiyay inaad ka jawaabto maxaa oran lahayd waan ka jawaabay okay ina ruuxa weeyaan in nimankan mucaaradka anigu siyaasadan u sheegay yani ninka saaxiibka iga soo horjeeda sano hadlayo anigu ma fahamsani laakiin systemka dunida jira ama mucaaradka dunida jira waxaad madaxweyne warqad u qoran kartaa marka aad aqoonsan tahay madaxtinimadii iyo dalkii qarannimadiisii iyo dawladii iyo systemkii aad aqoonsan tahay ayaa lagu la hadli karaya laakiin adigoo jabhadeynaya oo dalkii buu ku wada oo dagaal kicinaya oo la doorashadii ma ogoli oo waa la dhacay baan madaxweynaha warqad u qortay taas wax dhici kara ma inuu ku soo jawaabo taas waa mid takale wadankan Djibouti la yiraahdo wadan yar nabad buu ku nool yahay horumarka nabadda ayaa keentay wuxuu dibadda u diray ma jirto waa service waxa uu ku shaqeeyaa hadii buuq iyo khalkhal aad gelisaan dhaqaalaha ayaad u dhimaysaan wada noolaashaha ayaad u dhimaysaan horumarka ayaad u dhimaysaan dalka aad doonaysaan inaad xukuntaan marka hore waa la xijaaladiisu idinka muuqata waa in wanaaga dalka aad u qabtaan idinka muuqata qolada mucaaradka waxa isticmaalaan system aynaan inaan wali mucaaradba ku arag dad baa la soo kaxaynay waxa leeyahay kaalay dagaalama xoog ku soo qaata wixiini waa la idin dhacay Ismaaciil Umar Gelle farta ku fiiqayaan maaha yani nidaamka kama hadlayaan systemka kama hadlaan oo markasta waxa ka hadlaan waa madaxweynaha wadanku madaxweynaha maaha wadanku iyo madaxweynuhu way kala duwan yihiin waxaan oran lahaa nimanka mucaaradka warta madaxweynaha iyo wadanka kala saara systemka lagu shaqeynayo ka hadla wixii qaldan ka hadla laakiin inka meel bay kaga caday madaxweynaha caynkana taliska caynkana dadka xoog lagu haysta waxa wax jira ma takala nabadgelyada Djibouti boqolkiiba 50 maamulaha uu qalday meesha uu ka aqri garan maaye wadanka Djibouti geeskan Afrika oo dhan waa dalka ugu nabadgelyo badan dunida oo dhan infasad bay gashatay dadka wadanka maalgashiga ku sameynaya wadana nabadgelyadiisu buuxin laba maalgashado saaxiibkeeban u sheegaya ila hadlayaan wada doodeen dalkani nabadgelyo way waxa loo maalgashanayo hay'adaha dunida ee geeska ka shaqeeya ciidamada la dagaalama burcadbadeedka waxyaalahaas oo dhan waxay joogaan Djibouti Japan baa joogta dalka Jarmalka jooga Faransiiska jooga Ingiriiska jooga cid walba halkaas ciidankeedii Mareykan baa jooga cid walba halkaas ayay dadkeedii ku aamintay marka nabadgelyo dalteedu way wax meesha loo aaminay nabadgelyadeeda inaad meel kaga dhacdaan ma fiicna hadda mucaaradka tiin waa inaad horta marka hore dalka ka naxdaan shicibkana ka naxdaan nabadda lagu wada nool yahay aydan afduubin waxyaalo aan jirin amba aan dalka ka jirinna in layni ka dhageysto ma yaani saada hadalka imika aad u dhigtay leedahay qori baa lagu haystaa Djibouti waxa wax jira ma waa hagaag xasan hadii aan mawduucan aan doorashada ku sii socono waxa weeyaan ururka USN wuxuu ahaa urur aqlabiyada kula loolamay ururka EMB ilaa haddana waa ururka kaliya ee ka biyadiidan doorashooyinka iyo natiijooyinka ka soo baxay maadaama iyagii ay
hadda halkan taagan yihiin maxaa idin ka dawlad ahaan aad u malaynaysaa inay la gudboon tahay in ay ku qancin karaan si loo wada hadal oo macaarad iyo maxaafad oo isfahma kana wada shaqeeya danaha dalka aniga waxa ila tahay sharci baa jira dalka waxa jira maxkamad dalka ayaa ku taala madaxweynuhu wuxuu siiyay maxkamadaas madax banaani 2000 sanadka markuu xukunka qabtay wuxuu siiyay waxa la yiraahdaa madax banaani waa dhexdhexaad inay cadaaladda hor tagaan oo cadaaladda tagaan oo wixii ay doonayaan ay ka hadlaan way fiican tahay laakiin waa imika cadaaladba uma furnaayado sababta ay ugu furnayn waxay sameeyeen dawlad wax la yiraahdo ka hoosameeyeen maamul bay ka hoosameeyeen dawladii jirta marka macnaheedu maxamed waa qaran dumis nimanku waa inay noqdaan niman mucaarida oo dawladda ka soo horjeeda laakiin in qaranka iyo dalka iyo dadka iyo midnimada iyo horumarka ka soo horjeeda waa inay noqon وهاجاج محمد هدي عن وجهته وحويان doorashooyinku way dhaceen saas oo dhacaan ilaa hadana labada mowqif ee adag bad kala taagantihiin laakiin sayidinku waxaad ku dhawaaqdeen inaad xukuumad kale aad soo asaasteen xukuumadda aad soo asaasteen maadaama xukuumadii kale ee dawladda sii jirtay ee halkan ka shaqeynayso idinka halkaad u meeleynaysiin ama halkaad ugu tala gasheen inay xukuumaddiina cusub ka hawlgasho walaal sida runta waxaan ku sheegi lahaa horta anagu waxaan xukuumad soo dhisnay ma jiro xukuumadda madaxweynaha soo dhistay sida constitution-ka uu sheegayo axdiga dhexe wadanka ninkan walaalkay la dooday malaha reejibuto ma constitution-kana ma garanayaan u maleeyaa laakiin anagu waxaan ku dhawaaqnay natiijadii runta ahayd waxaan loogu dhawaaqay sida seeniga ururka madax banaan ee oo madaxweynuhu markasta uu dawladda ay macaarif ka mid hayn oo iska afduurtay daraadeed inaan sheegnay qolo kastaba intay heshay dibiteeda intay heleen marka dibiteeda lagu dhawaaqay ee baarlamaanka la dhisayna waa baarlamaankii xaqa waa baarlamaankii dadku soo doorteen baarlamaankan kale EMBdu iska waxeysatay ee qoriga afkii lagu maamulay wadanka waa baarlamaanu in Umar soo doortay maaha baarlamaan ay dadku doorteen shacabku doorteen baarlamaan danaha dalka ka hadli karana maaha baarlamaanku kulli uu shaqadiisu waxa tahay inuu xeerasha mariyo mashaariicda mariyo wixii danaha dadka eego wixii danaha dawladda eego labada dhinacba eego walaal kuwan uu soo doortay uu Ismaaciil Umar iska magacawday waa kuwa saga danihiisa eegaya shakhsi ahaaneed ma kuwa dalkana eegaya dadkana eegaya nabadana eegaya ma walaal waa kuwa u bedilay qodobyadu doon markaste markii dhaweeyay 2010 qodobka 23 iyo kalebi 24 ee constitution-ka iyo u bedileen oo laba goor saga u saamaxaysay inuu noqdo ku doorasho galo iyo wadhigan intuu doono waa kuwa aynka wax baarlamaan ma wax dad doortayna ma wax dadna ixtiraafsiin ma dadku waxay ixtiraafsiin baarlamaankan USNta ay doorteen ay dadka iyo matali kara walaal talabaad ninka walaalka ale USN dad bay soo kicinaysaa iyo jabhad bay doonaysaa walaal dadka waxay xiraya toortiirka ku wada waa EMPda oo EMPdu waa ninka madaxweynaha meesha haysta iyo afarta qof ee ku weydaarsan ku meegaarsan walaal oo Daahir Ahmed Faarax baa imika u xiran Umar Dambas weynoo nin halgamaa qaaliya oo maxaan ku raad calanka u soo halgamay iyo imika xiran inama maalin kasta la qaada dadka aqalada loo gura culumadii baa xiran walaal culumadii diinta ee Djibouti oo cadaalada ka hadashay iyo mid waxa jira oo xaqna u leeyahay qof inuu ka hadlo wadankiisa walaal qofkii hadlaba qofkii hadlaba ama waa gabadh ama suuqa lagu rasaaseenaya dadkuna banaanbaxyada hadaan iyar fursadiisiisid qof kasta wuxuu xaq u leeyahay oo constitution-ka ku yaala inuu qof kasta banaan bixi karo oo wuxuu ray leeyahay sheegan karo oo si nabadgeliya soo bixi karo in laga hortago rasaasna ma dhagayso waxa jijibiyaan ma jira dadku waa dad gamca maran oo gamca taagaya oo warqaysita oo aanu kuma doonayno cadaalad dulmigan diidayna cadaalad baan doonaynaa walaal wax rasaas loogu jawaabayo nabadda la sheegayo marka ma ESN baa duminaysa mise taliska duminaya walaal ay ga jawaabo walaalkay waa hagaag laakiin dhinac marka aan fiirino dawladda nabadgelyada wadanka xil baa ka saaran mas'uuliyad baa ka saaran haddii meeshii mudaharaadadii dadkan mudaharaada waxa dhici karta in iyaga laftarkooda dad iyaga ma aragtaan rabshadoodayaal oo ku dhax gabanaya ay jiraan dawladda markaas miyaynan iyada xil ka saarnayn inay amniga sugto wadanka maadaama nabadgelyadii ay tahay waxa kaliya ee ugu muhiimsan in wadanka la xoojiyo maxamed وكان ولا وحويان مركز توب بنابح لو حيريو اللي سو أبابولنا أما دتكو صوب عن دتكو ودنكو دد معها إن ودنكو دتك ريج بصورته سيد طبعا سيد عادي غير دتك ريج ودد ودن جعل ودد ودنكو احترامه ودد ودنكو غفران
ما dadka reeduut ma dad wax rabisha iyo rabshada iyo rasaas iyo wax dad yaqaanaba ma dadka reeduut dhamaantood waa hagaag xasan marka tay iyara ku dhameeyo walaal ku soo iyar walaal inkoo iga raaliya markasto rabshada dhacdaba ma dadka waxa waxeeya ee wadada talisku ku soo darsado oo iska jishiida meelaha marka dhammaan rasaas iyo beebe ku furo wadada aynka walaal waa hagaag xasan adiga aniga aan ku darsado ku darso horta wadanka dawladda ka jirta waxay mas'uul ka tahay dadka shicibka maalkooda deganaanta iyada ka mas'uula haddii ay soo baxaan oo dalka rabash lagu wado ciidan baa jira amniga waxay ku qasban yihiin inay ka qabtaan oo xidhaan cid sharciga ka sarreysana ma jirta maxamedow ogowta amba dalka u soo dagaalamo amba yaan ugu soo dagaalamin qofku hadduu dalka qaranka burburinayo oo fawdo wada waxa la yiraahdo mudaharaad mar walba joogta iyo qeylo buuq joogta waa la qabanayaa jeelkana waxa loo sameeyay wixii aan qaranka la socon karin amba dhibaato ku haya amba buuq keenaya amba xasuulunida wax kaga dhaca meel kaga dhacaya weyn lagu xiro ayaa loogu talagalay jeelka taa dawladdu way ku qasban tahay oo dawladdu waxyaalo fara badan oo iska indhasaartay baa jirta waxa kamid ah doorashadii madaxweynaha nimankan xusn mucaaradkii dad bay ka soo kaxayeen balbala iyo xayaable iyo layaable iyo dhulkaas ka keeneen magaalada keeneen kala mudaharaado xaq waa idinka maqan bay yiraahdeen wixii dhacay waa ogtahay guriga hooyooyinka waa la balqaystay wixii alaab taaleetunka lagu gurtay sariirihii guriyaha dumarku ay ku dhalaan waa la gurtay dad baa baabuurtoodii lagu gubo ku dhintay waxa soo dhanba iyaga ayaa ka dambeeyay dambiilayaal bay ahayn maxkamad la geeyo oo la xukumo oo ay dambigii ay ka galeen qaranka iyo ummadda wixii ay ummadda ka galeen in loo xidho bay ahayd oo laga gooyo dawladdu taama ay soo inay la iska dhaafay nimankii dambiga geystay ee hormoodka ka ahaa ee shirqoolka soo abaabulay weli way doodayaan oo madaxtinimo ay ku doodayaan dalka aad doonayso maxamed oo madax laga noqdo waa dalka aad ka naxayso waa dadka aad dibaatada u diidayso waa dadka aad buuqa u diidayso waa inaad horumarka jeclaataa waa inaad wanaagga dalka jeclaataa haddii aad mudaharaad samaynayso ka dhagaxa tuuraya iyo ka buuqa kicinaya inay kugu soo dhuntaan ma waxa la wixii dawladda u soo jabhadeynay haddii adiga isku soo hoos galaan oo mucaarad sheegtaan oo dadna soo horkacdo tiraahdo way mudaharaadayaan waxa cid kama dhageysan karayso nin Soomaaliya oo gabayaa wuxuu yiri Allah yaa ku dooxo haddana aan ku dilino waxa damacsantae kale dibadda ula soo bax waxa damacsantina la garan mayno laakiin way idinka muuqataa waa nacayb baa idinku jira nacayb Ismaaciil nacayb baa idinku jira in kasto waxa idinku jira waata oo mar kasta waxaad ka hadlaysaan madaxweynaha dalka madaxweynuhu ma maamulo baarlamaan buu leeyahay system kale buu leeyahay hatta directors baa jiro qayb ka mid maamulo Ismaaciil wada ko dhan jeebkiisa kuma jiro laakiin waa inaad macaarinimadina waa inaad muujisaan oo ku muujisaan inaad dalkan inaad ka naxaysaan oo jeceshihiin oo wax qabadkiisa ku farxaysaan oo wanaagiisa ku farxaysaan aniga waxa ila tahay marka fiirin siyaasi oo baanahay waxa ila tahay inaad wanaaga mucaarid ku tihiin waxa kolleeba waan cadeyn doona hadii cadeen lagu dhahdana laakiin anigu personal waxa rumaysanahay inaad wanaaga iyo horumarka iyo isdhexgalka iyo wadankan sida uu socdeen xawliga uu ku socdo inaad mucaarid ku tihiin baan ila tahay waa hagaag hadii aan balle arrimaha siyaasadda ee wadanka Djibouti aan iyaga laftirkooda inta aan weer gudubno oo geeska Afrika iyo dalal maad aragtaan ee gobolka Salal oo wadaagta yihiin wadanka Djibouti hadii aan wax ka weydiino idinka ka war ahaan USN dalada USN gobolkaas waxa ka jira abaar baasan inta badan gobolkaas waxaad moodaa in uu xuduud la leeyahay wadanka Jamhuuriyadda Djibouti dadka kala deegaana ay yihiin isku dad mid ah idinka ururka USN waxaana la gaarsiiyay meelahaasi gargaaro fara badan oo ka socda hadii ay yihiin qurba joogta ku nool wadanka dibadiisa hadii ay yihiin ma dartaan urura wadanka Djibouti ka hawlgala iyo kuwa kale oo caalamka ka jiraba ururka USN arrimaha dhibaatooyinka ama arrimaha siyaasadeed ee ka jira gobolka Salal ee ay wadaagtiin wadanka Djibouti bal isaga qorshe buu kaga jira ama kaalintee kaga aadan oo qayb kaga qayb galo kaga jira maxamed
ها ولا الهرتا قبل كسل waxay kamid tahay maxaan ku raada dawladda hoosaanada ee Soomaaliland leeyahay ee jaarkeega markasta annagu xaq dhowr baan leenahay dadka gobolka degana waa dhasheed waa inaan yaabtigi markasta abaaraha jirana ilaahay baa abaaraha dadka qaadi kara oo cirka u lisa marka ururka iyeesana de ilaahay uu barayaa oo maxaan ku reenoo nimcada u liso dadka degana waa dad xoolo dhaqataan u maleeyay inta u badan wixii kale gargaarana umada iyeesan dadka kamida dadkan kalena way ku jiraan de walaal ama dibadda ahaato ama gudaha ahaato dadka maxaan ku reenaa Djibouti ama Soomaalida kalaba ee gobolka taageeraysa kamid weeyeen dadku oo dadku dhinaca ma baxsano walaal laakiin annagu dhinacaana waxaan yar jirtay inuu gobolka iyo dhinacan awdal oo idilba inuu ninka Ismaaciil Umar iyo dad wato fidmad ka yar wadeen oo isku dirayeen labada qabiil degan meesha waxaan ugu yeeranaa ugu baaqaynaa inuu qarnigii 12aad yahay waqti jaahiligi qabiilka la isku diray in la dhaafay maanta in loo raadinayo shaqo abuur iyo horumar iyo fikrad wanaag in dadku dhiig si yaro khiyaali oo beena oo xaraana lagu daadiyo maaha jihaad ma jiro waa dad wala muslina waa dad waynan yartigi si fiican isku afgartaan oo xaq isku horfiristaan oo si wanaagsan nabadda ka taliyaan yaanu ugu baaqaynaa xasan adiga laftarkaagu waxa tahay aqoonyahan inta badan isha ku haya arrimaha siyaasadeed ee halka ka taagan bal maxaad ku tilmaami lahayd xaaladda siyaasadeed ee hadda ka taagan gobolka Sal wallahi idinka badeed aad baad u ogtiin arrimaha meesha dhibaatadaas ka taagan dhibaatada nature-ka ilaahay keenay dabeecadu keentay waxa laga ma qaban karo laakiin waxyaalo wax laga qaban karo hadal wax laga qaban karo baa jira anigu ururkan imika mucaaradka meeshan jaar baynu nahay oo dadkan dhiig baynu wadaagnaa iyagoo ka hadlaya maan maqal anigu dad baa iyagoo darsaas la hor yimid dowladlaayi hatta waa laga tacsiyadeeyaa wax kale hadaad qaban weydo waa la tacsiyeeyaa oo magacaad sheeganayso ururka mucaaradka ee tahay adoo ku hadlaya baa la fahamsiiyaa dadka mowqifkaaga la cadeeya waana meesha quray maanta dadka ay ku helayaan yani ay ka helayaan ay ka midaysan yihiin qadiyada quray laga wada midaysan yahay dilka dadka lagu geystay meesha shacabka in laga hadleeyahay inay ka hadlaan bay hayd laakiin taasi buuga uguma qorray iyaga ta kale dhibaatada meeshaasi way jirtaa dadka qurbaha jooga amba siyaasiyiin ahaadaan amba ururaha ahaadaan cid walba way ka qayb gashay laakiin iyagu way ka maqan yihiin iyagu waxa inta mashquul ku yihiin Ismaaciil Umar galowma mashquul ku yihiin yani system wax kale oo nidaam talaabo hayaan ma jirto ka kuleemka dagaalka halka ka dhacay Ismaaciil ba ka dambeeya wax kasto oo dhaca waxay nimankan oranayaan Ismaaciil ba ka dambeeya marka Ismaaciil awoodda faraha badan leh amba yani jiritaanka faraha badan leh gacanta ku hayo mucaaradka ayaa bixiyay jaaliskiisii bixiyay hadii mucaarad constructive oo wax qabanaya oo mowqifkiisa umada ka dhaadhicinaya oo wixii qalad sheegaya oo laakiin nabadgelyo nabadda ku dadaalaya uu jiro macal constitution-ka uu sheegay lama bedeleen ta kale waxaan u sheegayaa constitution-ku ma aha quraan kitaab quraan ma xeerkii odayaashana ma waa la bedeli karaa wadanku ayay ku xidhan tahay sida uu socdo hadii loo sii baahdo Ismaaciil Umar waxa la dooran karaa Maxamedow waxa afka Carabiga lagu dhahaa madal haya waa inta nooshahay dunida wadan quraaya ka dhacday wadanka la yiraahdo Tunisia madaxweynaha waxa la oran jiray Habib Bourguiba baa la oran jiray marka dalka ayaa u baahan qofka hadii dalku u baahan yahay sharci kasta waa loo bedelayaa marka waxaan rumaysanahay anigu Ismaaciil dalka ayaa u baahan maadaama dalku u baahan yahay dabcan constitution-ka waa la bedelayaa taasina wax weyn maaha oo waxa la qortay ku heshiiyeen haday rag ku heshiiyeen waa la bedelayaa kitaab quraan ma waa hagaaga hadda iyo gunaanidkeeni barnaamijka bal aniga oo su'aashan gabagabada ku hormaraya Maxamed sideeba aniga oo mucaarada ama aniga oo maxaafada aan uga qayb qaadan karaa ama talaada ama xukunkaan hayo ama yaanan haynin sidaan uga qayb qaadan karaa horumarinta wadanka iyo nabadgelyadiisa walaal way fiican tahay horta horumarka iyo nabadgelyada Ilaahay baa haya maxaan ku raadaa horumarkana dadka isku haya gacantooda horumar hadii la yiraahdo Djibouti fursad bay heshay ka soo bilow ku 1998kii
markii dagaalka Eritrea iyo Ethiopia uu bilowday taa oo alaabtii Ethiopia idil boorkeega iyo marsooyinka iyo maxaan ku raadiyay kadaha iyagu ay xoog u shaqeeyeen walaal iyo maxaan ku raadiyay taa oo lacag badan oo reseed wax la yiraahdo ka soo gashay dalka oo inta uu joogo ninka madaxweynaha uu sheeganayn wax quraatu ku deposeeyay ama dikada ku dhiso ama taxtara ku dhiso waxa le wixii wax yar la waxeeba waa wadan caawimaad ama qaana adduunyada laga soo qaado foo japoneega keeska foo japoneega foo kuwaitiyaga foo europeyaga waa waxyaabo wadanka diin la sii gelinayo inta ay haddana lacag ku soo shumayso haddana nabadgeliyada marka la yiraahdo walaal dadka reejigu waa dad nabadgeliyada u jajaban waa dad xumaan ka shaqeeya maaha waa dad horumar ka shaqeeya laakiin nin baa iska haysta oo xabib burqiba iyo Tunisia iyo dad lagu soo hadal qasbanayo Tunisia waa dad maxaan ku raada oo dictatoriyin umadu iska farxisay waxa la sheegayo ay ku leeyihiin daa'iman buu haysanaya daa'iman ma waxay ka dhigantaa ma qof Ismaaciil Umar ma qof bila aadana oo inta oo sanad hayn kara qofku xeer wuxuu leeyahay laba goor waxa ka badan wax kale u jeeda talabaad constitution hadii la bedelo dadku wadanka ma laga qaada aftal 60 qof oo aqal keentay yiri 60 kan baa ay footees ma wax maskaxda gali kara xumaan hadii la doonayo dagaal waa dawladda doonaysa iyo uu hogaaminayo Ismaaciil Umar معارضكو نبض بمركز سكود داليان ودن كوغا سحرين ونداك كدعو مربان سحر مقورسان ودن كوغا مركز تا دولة دابا فلان حنحن يدادك كعينيسا يدباتوين كوغا كدن بيسا هوري مركونا دادكونا waxay soo eegtaan iyo maalgeliska dadka maalgashtada adduunyadu meesha demokraasiga jira nabadda jira waxaan xasuusinayaa ninka walaalkaya gaal baa shaaratan dhexdeedani Djibouti geeri hadii qof aan ku yeesho 150 kun Djibouti maxkamadu ma iga qaadaysaa maxkamadeenu soo ogaaday way kaaga qaaday baan ka niri laakiin maxaa ka macnaa gaalkii in yar ka dibaded maxkamadii buu ogaaday inay si u socoto nin kasto Djibouti maada waa la dhacaa dadka maalgashiga Djibouti biratamaada u yaro Ismaaciil Umar dad kula jiru doona walaal ninka dawladda haysto iyo ka xishun biratama maalgashiga iyo horumarka imanay bal xaqu ka keenay demokrasi ma jiro wax administration saan u shaqeeyo ma jiro horumarka uu sheegay ninka walaalkay hay ka imanaysa saga ii sheegan uma garanay hadii toon waa hagaag xasan sharci cad ma jiro iyo walaal maxkamad cad ma jirto oo maxay ku qofku haduu wax dhalayso uu la tagi karo ma jirto maxkamad cad Djibouti waa hagaag xasan qofkii hadana waxa lagu xukumayaa 15 sano si Abdulrahman Buure walaal la dhacay horumarka la sheegay waa maxay waa hagaag xasan waan uga baxay walaal xasan isla su'aashan kugu celiyo sidee aniga oo ma aragtaan ama macaarada ama maxaafada aan uga qayb gali karaa horumarkii wadanka iyo nabadgelyadiisa waa isla su'aashaas waxaad uga qayb gali kartaa dad macaarad tahay dawayna dawladda ixtiraamta horta waxa la yiraahdaa quraanka waxa ku jirta aayada adeecu Allah wa adeecu rasuul wa ulul amr minkum ninkani markasto hadlo Ismaaciil buu ka hadlaya oo dhaliil saaraya amba dambiguna lahayn horta qofku haduu madax ku yahay inaad adeecdo ku jira maxamed uu la socotiin kala mooyaan adeec Allah wa adeecu rasuul wa ulul amr minkum ulul amr gawanika adiga ku xakumo madaxda kuwa waa kow taa wal xasuusinaya ta kale sharciga iyo dalka kala dambeynta nidaamka dastuurka uu yahay inaad dawlad uga qayb gali kartaa dalka horumarkiisa wixii qaldan baa dawladda u sheegi kartaa si nabadgelyaad u sheegi karaysa san nimankan u socdaan maaha si nabadgelyaad uga sheegi karaysa ta kale markaan ku sheego walaalkayo dawladdani waxay qabatay baan ku sheegaya dalkan Ismaaciil wuxuu meeday isagoo bilaa mashaara isagoo bilaa koorana isagoo bilaa waxbarasho isagoo bilaa caafimaad aan haysan aan waxbarasho jirin aan mishaar jirin aan biyo jirin aan wadooyin jirin laba boqol baa magaalada caasimada Nairobi dhex socdaan ayuu yimid isla markiiba waxa isbedel baa dalka ku yimiday mishaarkii waa la helay tira tareedkii waa la helay iskuuladii waa la hagaajiyay dib baa loo galay dhakhtaradii waa la ballaariyay waxbarashadii waa wadaga arko meel kasta waxbarasho laga furay wadankii wuxuu noqday wadan dhaqaaqay taas waxay noqonaysaa siyaasaddu marbay midha leedahay afka Soomaaliga waxa lagu oran siyaasadda midha laga gurtaa dalkeenu wuxuu dibadda u saaray ma jirto xabata maalda dalka Djibouti ma soo saaro haddana xawli ay ku socoto siyaasadda waadiga arkay dalka dhaqaalihiisi oo koraya horumarkii waa joogto wax walba waa la hagaajinaya marka ma garanayo iyagu marka nimankan macaaridkii waxa ay macaarid ku yihiin markaan eego horumarka dalku ku socdo isbedelka dalka ciidamada soo Djibouti dib baa loo dhisay material iyo moral ahaanba maanta Afrikaanka wadamada Afrikaanka ciidan ka moral fiican oo ka material fiican ma jiro waxa
waxaasoo dhan waa dhaqaale wixii dalka soo galana dalka lagu dhisaya ummaduna way arkaysaa horumarkii leerkii baxaya leer lagu qabsadaa terminal containers waxa la yiraahdaa Djibouti laga sameeyay magaalada Doorale ninka boore uu ka hadlayaa wadalka cashuur fara badan bay ku leedahay isma u kaliin gareyn wadanka waxa la wixii contract dalka jiray isaga ayaa qaadan jiray Djibouti oo 760% ay dadku balaashaqo yihiin wuu ka keenay shaqaale kale wadamada kale oo contract laborers wax la yiraahdo keenay dalka waa dambiile iyadoo dadkii ay balaashaqo yihiin wax walba minabol buu ka dhigay isaga minabol ka dhigay kadibna cashuurtii dalka ayuu la baxsaday nin kasta oo wadanka dambi ka galaana macaarid baan ahay buu oranaya wararta idinku gacmihiina nadiif ka dhigo oo maydha intaydan macaarid noqon anu waxaan leeyahay war dambiilayaal baatiin oo dalka dambi aad ka gasheen gacmihiina nadiif ka dhiga dadka u sheegta wixii aad damacsantiin calooshiina ku jira waxba ha qarnina horumarka dalkana ka qayb gala ha ka xumaanina iftiinka dalka u baxaya ummadda wada socota dadka isku wada walaalaha ummadda wada degan iyo wixii wanaag ee dalku u leeyahay hadiye jeer xumaantiisa marka dalka raadiso wadani matid maxamedo dalka waa inaad wanaagiisa ku farxdaa dalka horumar fara badan buu sameeyay jaamacad baa laga furay jaamacad ciidanka la furay wadooyinkii baa dib loo sameeyay boardkii baa la ballaariyay maanta Djibouti meesha ay marayso wada socota inaad hanbaliyaysan mooyaane inaad ka hortimaadaan ma ahayn Ismaaciil Bargile nacaybkiisu wax macno idin sameynaya ma jirto wadanka ayaa ka weyn Ismaaciil jacaylka wadanku dadka kala mid noqda anaga jacaylka wadanka anahay waxaan u hadlaynaa cidoo hadlimayno cid kalena oo anagu ma difaacayno laakiin qarannimadan difaacayna iyo calanka iyo ciidda iyo horumarka iyo dadku dhanka ay wada socdaan ninkii ka hor imanaya wadaadada sheegaysay wadaadada fiican way jiraan qaar si kale u isticmaalayna way jiraan ninkii qarannimada ka hor yimaaday waa cadow maxamedow waa cadow weeyaan waa la iska qabanaya waana la xidhaya haddaad ka hor timaado jiritaanka dalka cadowga dibadda waxa ka daran cadowga gudaha cadowga guduhu waxba burburiya marka meeshii nin kasta oo Djibouti inuu dhibaato u geysto doonaya amba inuu qaranka burburiyo doonaya amba xumaanta Ismaaciil Bargile ku jirto ma aha inuu xisbiga macaaridka soo galo oo idinku tiraahdaa waa macaarid baana idinku gacmiina soo meedha maxamedow waa hagaag waad mahadsantihiin dhammaantiin sida wanaagsan ee barnaamijka aad nagala soo qayb gasheen inta aan barnaamij lamid ah dib dambe ugu kulmi doonana waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo dhegeystayaal halka aad kala xiriireysaan waa radio Shinilo aad ka dhageystaan barta internetka shinilanews.com haddaba barnaamij lamid ah intaan dib dambe ugu kulmi doono dhammaantiin waa anagoo idin la sidaas iyo nabadgelyo Ooh.